guriga fiyugiisa ama muuqaalkiisa inta way guriga gudihiisa in kala doonaa imaka dilayd ma sha Allah ما شاء الله هوكا runtii wali lama nadiifin imikun baa guriga xalkiisu dambeeya socda tani waa daaradii ama corridorkii daaradaas buu waa soo leeyahay decorationkii ayuu leeyahay kan hadan ka horeyna waa fadhigii runtii waa kan xaafadii lahayd badaayo ku soo xidhatay waka laakiin qaabkaas ayuu sameeysan yahay guriga fadhigiisu runtii fadhigu sidan waa 5 mitir sidana waxa weeyaan 9 mitir wuxuu leeyahay 3 daaqadood waaweyn tan iyo tan buu leeyahay runtii inta uma baahnaba laydhi waxba uma baahna waan ka soo baxaynaa waxaan gelaynaa markaa haddana xagga ma soo soconaynaa daaradda horta inta aanan qol kale gelin daaraddan idin tusaya runtii daaradda ka balaaran wata runtii daaradda balaaran buu leeyahay guriga qolaalkiisu wuxuu ka kooban yahay waa qolkan iyo kaas oo hurdo ah iyo 2 qol oo xagga ku jira kana waa suuligii komanka ahaa xagga ma isagana laga geliya albaabadii baan kala duwanay runtii kana waa qolkii hurdada meenka marka gurigan wuxuu leeyahay 2 hurdo kan iyo kan marka hurdadana waa meenkii taasina waa hurdo kale oo yar yarna marka intana waa kaabixiskii hadaan hurdadan eegno wata يعني وحلي الصبر يترك لي فرنتيها يعني أو كيما رشوا الله قلت لك عليها وهي كان هو حاول ينقل كي هرتته وينوي مركز سكن الدحية دي بحافتك صحرة فرنتي إن شاء الله تعالى لابد أشياء صعبة أما مالك تبان إنه كجورينا شقين يروك ونوه على أوجد وهي قالك كلام يقول شخص واسكن نورمال وقال العادية kaasina waxa weeyaan waa gurigii labaad ama waa hortadii labaad suuligiina waa kan gurigina xagga soo lagu leexnay qolkii waayahay sidan baan soo soconaya kana waxa weeyaan suuligii komanka hawi dadku isticmaalayeen waa ka suuliyadu halkan daaqada daloosha waxaan ugu talagalnay ventilation ama marwaxada huurkii waxa ka saarta marka labadii qole kale xagga dambe ku yaala midna waa ka midna waa kan xagga waxa looga baxaya surface-kii ama kitchadii waayahay masha Allah marka xagga marka soo baxday albaabkan koonahan ila koonahaas waa surface-kii weeyay waxaan jeedaa waa barxadii ama waa barandii koona ilaa koona waa barande kitchadii watan kitchen cabinetkii waa ku socda yani lagu xidhay dilay ma sha Allah taala halkan waxa lagu talagalay talaagadii intan waxa weeyaan intii wax lagu googoosanayay halkan waa ku kartay baashi qiiqa ka qaadaysay ka saaraysay xagan waa farxalkii daaqada aad ka weyn buu leeyahay runtii markuu dhamaado wuu qurux badan doona insha Allah taala iyadana wada la soo wadaagi doona xagana dhul banaan waxa ku yaala kan waa qol sidoo kale xagan waxa ku yaala suuli iyo laundry intana waa dhul iska banaan barxad wax lagu meeran karo la iska fadhiisan karo waayahay marka gurigan runtii luuqana waa laga wareegi karaa luuqa dhinaca kalena waa laga wareegi karaa hadaba cid kastoo danaynaysa waxaan ku soo dhaweynaa gacmo furan insha Allah taala